bilowga taxanayn cusub waxaana la baryaa haweeney lagu magacaabo haan goob ay iska taagneed intii goobtaas ay taagneed waxay maqlaysaa qayli waxaana israacdeysanahay laba haweeney kale haweeneyna waxay ku qaylinaysay cunugeyga iga dhiga haanna waxay bilowday haweeneydii cunugooda tin lagu bixiso haweeneydiina dhulka ay ku dhacday isla markiiba waxay imaanaysaa haweeneydii kale oo haweeneydii raacdeysanaysay waxaana bilowday haweeneydii in iskoob la dhacdo idoo markaas bilowday inay zaad u garaacdo daawada intaan muuqaalka si guud galin canshuurta iska bixi oo la garay muuqaalka hadda dalkan ku cusub tahay kamid noqon saaxiibada nagu xiran laakiin haan waxay bilowday in markaan haweeneydii ka celiso haweeneydii kale waxaan ku tiri war adiga muwaalanta sidii wax ka yihiin qofkaana waxa loo wici karaa booliiska laakiin haweeneydii ma aysan dhageysanin oo iska kala tuurtay waxaana bilowday haweeneydii inay sii garaacdo marka la yiri ku soo laabatay haan waxaan ku tiri sidaani waa khalad waxa dhawaata inaad dambi yeelanayso xitaa hadii haweeneydii dambi lagu helo laakiin haweeneydii iyadoo haan indha faraha gelin rabta waxa gadaal qabanaya haan hooyadeeda waxaana bilowday in markaan ku dhagto oo la dagaalanto waxayna tiri naagtan aad u beebadan tahay aniga ayaa garanaya haana waxay bilowday in markaan hooyadeedii ka celiso haweeneydii kalena waxay bilowday in markaan gabdheedii habsiiso hooyadiina waxay bilowday gabdheed in dusheeda feedo waxaan ku tiri waad u jeedaa haweeneydani gabdhidii sidii u gashay haana markii midaan aragtay aad bay ula yaabtay waxaana bilaabay in markaan haweeneydii soo wadaan oo markaan saldhig ay keenaan ugu dambeyntii haan iyo hooyada saldhig ay ka soo dhamaadeen wayna soo dhaqaajiyeen iyagoo markaan soo aaday guriga markay yimaadeen cunto ay diyaarsadeen waxaana bilaabeen cuntadooda inay markaan cunaan subaxdii xigtana gabadhii haaneed waxay soo eedaysaa shaqadeeda waxaana ogaanaynaa gabdhaani haan inay ka mid tahay booliiskayna u shaqaynaysay waqti xadirkaana kees ay ku guda jirtay mid ka mid ah asxaabteeda ayaa wax u sheegayaa inuu iyada rabo taliyaha sare wayna soo dhaqaajinaysaa taliyaha sare ayna u timid taliyaha sarena wuxuu markaan u sheegayaa kiiska ay haysa in iyada laga wareejiyey marka midaas maqashayn aad bay u xanaaqday laakiin waxaa loo sheegaa midaan qasab inay tahay oo ay iyada waxba ka qaban weysay kadibna iyadoo murugsan ay soo dhaqaajisay banaanka ayna murug la fariisatay habeenkiina waa ay soo dhaqaajisay iyadoo markaan ugu dambeyntii timid gurigeeda markay timid waxay markaan u imaanaysaa hooyadeedii oo markaan ku jirto xaalad kale waxayna tiri hooyadii maxaa ka qaldan markasta waxyaabo qaldan maxaad u fiirsataa waxaana bilaabeen iyadii hooyadeed inay markaan guriga ku sheekaystaan ugu dambeyntiina subaxii waaga ayaa baryay wayna soo dareereen waxayna markaan haan iyo hooyadii bilaabeen qof kasta inuu markaan isku diyaariyo shaqadiisa maadaama ay ahayd xilligii la aadi lahaa shaqada intaa kadibna gabadhii haaneed waxay markaan arkaysaa in hooyadii ee markaan dhammaan dharka isku dartay oo markaan ka buuxisay qasaalada waxay markaan ku tiri hooyo maxaa adiga sidaan dharka maad kala saarteed qaybna maad u dhaqdeed laakiin hooyadii waxay ku tiri haddaan qayb u dhaqo iyo haddii aan isku dhaqo waa isku mid waxaana bilaabay inay dhar isku qabsadaan dharkii ay markaan isla jiideen laakiin nigis ay markaan tuureen nigistiina waxay bilowday inay beebto siday u socoteen in baaskiil wata iyo madax ka fuushay iyagana markay midaas arkeen aad bay ugu naxeen waxaana bilaabeen ninkii ay markaan la hadlaan oo ay raali geliyaan waxaana gabadhii haaneed ku tiri waan ka raali gelinaynaa waxaan kugu sameynay laakiin aniga ayaa kuu soo degayaa ninkiina wuxuu markaan arkayaa waxaana madax u saaran marka waxaan arkayn aad buu ula yaabay gabadhii haaneedna way soo carartay iyadoo markaan u imaanaysa markii ninkii u timid waxay markaan ogaanaysaa in taliyaheedii uu yahay waxaana bilowday inay salaa u saarto waxaana tiri taliya waan ka xumay waxaan kugu sameeyay iga raali noqo isagana wuxuu ku yiri dhib ma lahan waxuuna bilaab nigisteedii inuu siiyo oo halkaas ka dhaqaajiyo maalintii xigtana haan hooyadeeda waxay markaan imaanaysaa goobteedii shaqada waxaana sugayay dad badan maadaama ay ka shaqaynayso goobta masaajka gabadhii haaneedna waxay bilowday inay markaan wiidayso taliyihii maadaama markii ugu horeysay ay jeclaatay taliyaha ugu dambeyntiina way soo laabanaysaa iyadoo markaan ku soo laabanayso guriga markii ku soo laabatayna waxay markaan weynaysaa wax shanqar ah waxaana markaan ugu dambeyntii arkaysaa hooyadeedii oo markaan iska raaxaysanaysa oona wejiga saaratay gloves markii ay damacday gloveska inay ka qaadana hooyadeedii ayaa la hadashay waxayna ku tiri gabadheedii aniga waan soo jeedaa ee waxaana farahada hala gelin waa inaad jiifataa subaxdiina markii gabadhii haaneed ay soo kacday waxay arkaysaa hooyadeed oo markaan cabaadaysa maxaa yeelay maaskiga ayaa toos ugu dhagay waxaana markaan ku qaylinaysay xali maxaad iiga fujin waysay waxayna bilowday hooyadeedii inay garaacdo kuna tiraaho gabadheeda xali inaad iga fujiso ayay ahayd laakiin waxay ku tiri hooy keena kaa fujiye laakiin hooyadeedii waxay ku tiri adiga xaasidsanida aad bay u xanuun badan tahay haddii la iska fujin karo aniga ayaa iska fujin lahaa ugu dambeyntiina gabadhii haaneed xal ayay raadisay shukumaan ayayna soo qaaday wayna qoysay wejigayna ka saartay hooyadeeda xogaa yar wayna joogtay intay ka jilcayso intaasna way usii sheekeynaysay hooyadeeda ugu dambeyntiina hooyadii haan maaskigii ay iska soo fiiqday waxna markaan soo aadaysaa shaqadeedii ayay bilowday in markaan soo qabsato oyna ka soo dhamaato iyadii gabdheediina mool ay isku soo raaceen iyagoo markaan shaleemo soo aaday shaleemadii ayay bilaabeen in markaan ku soo raaxaystaan ugu dambeyntiina maalintii xigtay gabadhii haaneed waxay markaan toos u
imaanaysaa saldhigga iyadoo markaan raadinaysa taliyihii inkastoo ayada ka mid booliiska laakiin taliyahan inta badan ma aysan arki jirin xafiiskiisa ay nagu timid waxaana bilaawday dhammaan askartii inay salaanto laakiin iyada halkaas ayaa lagu soo dhaweeyay waxaana markaan u sheegaysa in iyada ka tirsan tahay ciidamada booliiska laakiin iyada si diiran ayaa halkaas loogu soo dhaweeyay waxaana markaan loo sheegay haddii ay doonto inay halkan kasoo shaqogali karto laakiin isla markii gabadhahaneed waxay bilowday inay uniform ka xirato oyna markaan shaqadeedii sii gasho waxaana markaan soo wacayso hooyadeeda waxayna ku tiri maxaa kugu dhacay gabadheeda xilliga inta ku maqan tahay laakiin waxay ku tiri hooy waan imaan doonaa isla markii waxaa saldhigga imaanaya taliyihii markii aragtay inay aragtidiisii aad bay ula tacajabtay maadaama ay taliyahani jeclaatay markii taliyihii aragtay bislaan ayay u saartay dhammaan dadka halkaasi taagnaana aad bay u yaabeen markii ay taliyihii salaantay taliyihii wuxuu ku yidhi adiga ciidamada miyaad ka mid ahayd maba ku ogeene iyadana waxay ku tiri haa taliya ciidamada ayaan ka mid ahaa laakiin maanta waxaan usoo wareegay adiga xafiiskaaga waxaana rajada inaan kula shaqaysan doono taliyahani wuxuu ku yidhi haye shaqo wacan waa uuna ka dhaqaajiyey wayna soo dhaqaajisay gabadhahaneed iyadoo markaan timid gurigeeda hooyadeeda ayayna u timid waxayna bilaabeen hooyadeedii iyada inay markaan sheekaystaan waxayna markaan u sheegaysaa hooyadeedii inay markaan tagtay xafiis cusub una xafiiskaasi maamulo taliyihii ay kastoomada madax u gelinaysay subaxdeena way soo dhaqaajisay iyadoo soo shaqo gashay waxayna bilaawday inay markaan xafiiska si wanaagsan ugu shaqayso gabadhahaneed iyo taliyahana way soo raaceen taliyahana waxaa lagu magacaabaa Mr. Luke intay gabadhahaneed iyo taliyihii isla socdeenba waxa markaan soo wacaysa hooyadeeda waxayna markaan u sheegtay hooyadii in dhammaan dharkeedii laga xaday wayna sida ugu dhaqsiyaha badan dharkeed u soo celiyaan ugu dambeyntiina haan ayaa taliyihii waxay u sheegtay inay hooyadeedii soo wacday waxuuna taliyihii ku yidhi maya ka welwelin hadda ayaan u tegaynaa wayna soo dhaqaajiyeen ugu dambeyntiina waxay markaan u yimaadeen hooyadii waxayna bilaabeen hooyadii inay markaan su-aal weydiiyaan oyna ku yidhaahdaan haye maxaa lagaa xaday waxayna markaan u sheegaysaa hooyadii in dhammaan alaabteedii laga xaday oo dhammaan dharkeedii uu maqan yahay wayna soo wadeen hooyadii iyagoo markaan guriga soo geliyey waxayna bilaabeen hooyadii inay markaan wareystaan laakiin gabadhii haaneed waxay bilowday inay dhammaan deriskii wareysato oyna markaan qof kasta ugu tagta gurigiisa iyadoo markaan raadinaysa tuugii ugu dambeyntiina guri deriskooda ah oo 201 haya markaan garaacday waxaana markaan ka furiyay ninkiina wuxuu markaan ku tiri hay waxaan rabaa su'aal yar oo kooban inaan ku weydiiyo maxaa yeelay hooyadeed ayaa dhar laga xaday su'aalahaas sida ugu dhaqsiyaha badan waana diga jawaabtaa maxaa yeelay aniga booliis ayaan ahay isagana wuxuu ku yiri hay waayahay soo daa su'aalahaaga waxayna bilowday su'aalihi inay markaan weydiiso ayna markaan ku tiraaho hay adiga saacadii ugu dambeeyay xageed joogtay inta ninkii la hadlaysay ninkii markaan alaabaya ka dhacday alaabta ayuuna doontay waxayna markaan ku arkaysaa nigistii hooyadeeda ninkiina samarkiiba nigista ay qabatay waxayna bilowday inay qayliso kuna tiraaho tuugii waan helay gacanta ayaan ku dhigay kaali iga soo gaara dhammaan deriskiina way soo baxeen taliyihii iyo hooyadiina way maqleen wayna soo dhaqaajiyeen ugu dambeyntiina waxay markaan u imaanayaan gabadhii haaneed oo markaan hayso tuugii ay markaan isugu tageen ugu dambeyntiina gacanta way ku dhigeen hooyadiina markay nigisteeda aragtay waxay ku tiri tuuga waa kana nigisteedii ayuu xaday waa ninkaan wax ka qabataan waxayna bilowday tuugiina markaan garaacdo ugu dambeyntiina tuugii wax markaan keeniyaan saldhigga tuugiina wax markaan naga celinayay hooyadii haan maadaama iyada uu dharkeedii xaday booliiskiina markii ay maqleen in kastuumooyin la iska xaday midaas aad bay u la yaabeen maxaa yeelay wax la iska xado oo la isku qabsado ayaa badan laakiin kastuuma ma aysan wax la isku qabsado filikaana dhammaantiisa waa qosol miiran ugu dambeyntiina ninkii tuuga waxaa la bilaab in gaar loo wareysto haweeneydii haan hooyadeedna gaar loo wareysto si marka labadoodaba akhbaar isku mid ah looga helo laakiin intii ninkii la wareysanayba wax uu yiri naagtan aniga qalad ay u maagaysaa kastuumadan aniga yaa iska leh waxaan u umaleynaa kastuumadeedii inay ida haysato maxaa yeelay kastuumooyin badan ayaan lahaa haweeneydii haana way qaraartay waxayna bilowday inay ninkii xaggiisii soo adoona weerar ku soo qaado halkaasna qallaaso badan ayaa ka abuurmay digaal ayaana la isku qaaday hooyadii haana waxay bilowday inay ninkii u fafakato iyadoo markaas dhammaan booliiska ay bilaabeen inay ka celiyaan booliiskana waxay bilaabeen ninkii tuugan halkaas ka wadaan maadaama hooyadii haan ay markaan zaa'id noqotay hooyadii haana ugu dambeyntii bannaankay u soo bixiyeen taliyana wuxuu ku yiri hadda kiiska waan dhammaynay waa uuna dhan yahay khayr badan ayaa idin rajaynayaa halkaas inay ka macaslaameeyeen haan iyo hooyadeedna way soo dhaqaajeen iyagoo markaan yimid guriga waxayna bilaabeen cunto diyaarsan oo markaan iska cunteeyaan maalintii xigtana hooyadii haan waxay markaan soo aadaysaa shaqadeedii masaajka ayay bilowday inay markaan qabsato nin ayayna u masaajeynaysay ninkiina intii u masaajeynaysay raaxa ayuu dareemayay laakiin waxay bilowday inay markaan ninkii ugu masaajeyto si xaasidnimo ah iyadoo markaan suxur xitaa u adeegsanaysaa dhammaan dadkina ninkii qaylidiisii ay aad uula yaabeen waxayna bilaabeen inay soo wada fiiriyaan oo markaan ku yiraahdaan war ninka maxaad ku samaynaysaa laakiin waxay bilowday ninkii lugti uu qaado inay jibiso dhammaantiisba ninkii waxay ka dhigtay baralaato markay u dhammaysana waxay ku tiri hay howsha soo okay ma ahan isagana wuxuu ku yiri hay waa okay hal mar kaliya dhaaf iyadoo markaan aad u faraxsan ee markaan ka soo baxday shaqadii
shaqadii. Ugu dambeyntiina habeenkii gabadhii ahneed wax markaan imaanaysaa guriga halka hooyadeeda markaan jiiftay. Hooyadeedii ayay soo ag fadhiisatay waxayna ku tiri hay hooyo ma saaxatay, laakiin hooyadii ahaan way soo jeeday wayna ka dhaqaajinaysaa gabadhiidu aad qolkeeda. maalintiina gabadhii ahneed hooyadeedii wax markaan soo aaday shaqadeeda intay qabsanaysay nin ayaa markaan u yimid waxaanu ku yiri adiga shaqa ma taqaanid ee xaasid ayaa tahay dadka waad jibisaa midaasna ma wax loo baahan yahay qofka masaajka waxa looga talagalay in qofka uu masaajeena uu ku raaxaysto masaajkiisa laakiin adiga intaas midna ma tihid. marka hadalkaas ku dhahay hooyadii ahaanba waxay bilowday inay markaan weerarto oo markaan darab dhab ku siiso dhammaan waayeeladii masaajku baana halkaas joogeen waxay bilaabeen markaan ku qayliyaan oo ay ka fujiyaan laakiin ma aysan ka fujinayninba waa ay lahayeen. ugu dambeyntii waxa markaan la wacyaa booliiska ayaa bilaabay inay markaan u yimaadaan oo ay ka fujiyaan. ninkeena markii laga fujiyo waxa uu yiri haweeneedani dhammaan macaamiisheedii ibra ay ka siisay dhammaantood isbitaal ay ugu dirtay lafahoodii oo dhan way burburisay midaasna macquul ma ahan. waayeeladii halkaas joogay oo macaamiishu halkaan masaajkan waxay yiraahdeen been ayuu sheegayaa anaga ay noo masaajaysaa weligeedna waxa samaanan arkin. ugu dambeyntiina kiiskii waa la xaliyay dhammaan waayeeladii halkaas waa laga waday. gabadhii ahayd ugu dambeyntii waxay timid gurigeeda waxay markaan u imaanaysaa hooyadeedii oo markaan iska qabaysanaysaa baraagta ayna ku dhex jirtay wayna wada sheekaysteen iyadii hooyadeeda. ugu dambeyntiina way soo jiifteen. maalintii xigtaba gabadhii ahneed iyadoo markaan u socdo shaqadeeda waxay markaan arkaysaa guriyaal meel looban iyo booliiskii oo halkaas jooga maxaa yeelay gabadhii yariis ayaa waxay isku dayaysaa inay markaan iska soo toorto dabaq aad u dheer markay midaan aragtay in aad ula yaabtay. booliiskii markay ay weydiisana waxay markaan ku yiraahdeen anaga ma garanayno sababta ay gabadhaas isku tuurayso. haweeneydiina waxay dhinaceedii ku arkaysaa baabuur agteeda yaala wayna soo dhaqaajisay laakiin nin ayaa bilaabay inuu halkaas ka cararo shaki ayayna dareentay waxaana bilowday ninkii inay markaan daba kacdo laakiin inta ninkii daba socotay waxay waanaysaa in gabadhii la badbaadiyay. socodkeedii maysan sii joojin waxay bilowday inay markaan ninkii raadiso laakiin ugu dambeyntii ninkii way waysay. markii gabadhii la badbaadiyay ugu dambeyntii way soo dhaqaajisay waxaana markaan u imaanaysaa taliyihii waxaana markaan u sheegaysaa dhammaan waxay soo aragtay waxayna ku tiri waxaan u maleynayaa ninkaas inuu ku qasbayay gabadhaas inay isdisho midaasi waa qasab maxaa yeelay markuu aniga arkay halkaas waa ka cararay dad ayaa jira oo dadka ku qasbayay inay isdilaan. taliyana waxa uu ku yiri kale midaas waan arki doonaa wayna soo bixi doontaa. habeenkii xigtana dhammaan askartii waxay markaan qabsanayeen xalfadii ayay bilaabeen markaan ku raaxaystaan iyagoo markaan bilaabeen halkaas ku cabaan kuna cunaan halkaas ayna ku wada sheekaysanayeen dhammaantooda. laakiin ugu dambeyntii maalintii xigtaba booliiska waxay markaan heleen meydkiina markii arkeen aad bay ula yaabeen waxaana goobtaasi joogtay gabadhii haan ahayd waxayna markaan ogaanaysaa meydkan inay tahay gabadhii doonaysa in isdisho waxaana markaan dareemaysaa gabadhan dilkeeda in laga dambeeyay. kiiskiina dhammaan waxa laga baahiyay TV-ga waxaana bilowday gabadhii haanad inay markaan kiiskii daba kacdo oo inay raadiso oo inay ka raadiso cadeymo badan. saldhigeeda ayay timid waxaana bilowday inay baaritaankeedii sii wadato iyadoo markaas raadinaysay cadeymo badan. waxaana la joogtay haweeney kale taasoo ka mid ah askarta wayna soo dhaqaajisay gabadhii haanad iyadoo markaan ugu dambeyntii timid gurigeeda laakiin hooyadeeda ayay waysay. hooyadeeda ayayna sugtay hooyadeeda ayaa u timid guriga ayayna soo galeen waxaana bilaabeen markaan cunto karsadaan cuntada ayay bilaabeen inay wada cunaan kadibna waxay timid qolkeedii wayna waxay sii waday baaritaankaasoo ku saabsanaa gabadhii la dilayay. iyadii iyo askarigeedii taliyahana way soo raaceen iyagoo markaan soo dhaqaajisay magaal ku soo wareegaan waxaana markaan arkayaan nin meel fadhiyay ninkaasna way ka yara shakiyeen isla markiiba ninka ay u yimaadeen waxaana bilaabeen inay markaan su'aalo weydiiyaan laakiin ninkii indhataag iyo qarqar ayuu bilaabay isla markiiba way soo wadeen iyagoo markaan keenay saldhiga markay keeneenba waxay bilaabeen inay markaan ku sameeyeen baaritaan dheeraad ah waxaana bilaabeen inay ninkii u baaraan si aad u qoto dheer maadaama ay ka shakiyeen. ugu dambeyntiina ciidankii booliiska ninkii dambe way ku waayeen wayna fasaxeen. ninkiina waa uu soo dhaqaajiyay isagoo markaan yimid banaanka markuu yimid waxa uu bilaabay inuu markaan baabuurtii fiiriyo laakiin waxa markaan ka daba imaanaysa gabadhii haan ahayd laakiin ninkii gabadhii haaneed markuu arkay uu kasii dhaqaajiyay isagoo halkaas kasii dhaqaajiyay wadada ayuuna ku dhacay. habeenkiina gabadhii haaneed way soo baxday iyadoo markaan gurigeedii u socotay markaan arkaysa nin meel taagan kaasoo watay isla boorsadii ninkii ay qabanayeen. ninkii markuu arkayna waxa uu bilaabay inuu dhaqaaqo iyadiina waxay bilowday inay ka daba dhaqaaqdo ninkiina wuxuu isku dayay inuu baxsado wuuna cararay iyadiina waxay bilowday inay ka daba cararto oo inay ceersato ninkii. gabadhii haaneed ninkii cagta u saartay mana aysan ka harin waayna daba cararaysay loo kasta oo marana way la galaysay laakiin intay ninkii ceersanaysay waxay markaan wacaysaa booliiska. ugu dambeyntii ninkii ay markaan qabatay waxaana bilaabay ninkii inuu la dagaalamo laakiin ugu dambeyntii gacanta ay ku dhigtay waxaan halkaas yimid booliiska. markii ninkii ay qabatay waxay markaan ogaanaysaa ninkan inuu yahay ninkii ay soo qabanayeen waxaana markaan ku tiri war adiga yaa tahay maxay tahay sababta aad iga cararayso. laakiin iyadoo markaan garaac rabta booliiska ayaa markaan ka qabtay ninkii taliyaha iyo ciidankiisa ayaa markaan isugu tagay taliyana way kala toortay taliyihii lowna dhowr mar ayay kala toortay ugu dambeyntiina way ka celiyeen laakiin waxay markaan dhaawac ka dhigaysaa taliyihii waxaana markaan ku tiri taliya raali noqo aniga kasmaysan iga ahayn ninkan ayaan rabay inaan qabto. ugu dambeyntii
dambeyntii halkaas ayaa lagu daaweeyay taliyihii laakiin ciidamadii waxay markaan u sheegayaan in ninkan uusan lahayn wax dambi ah balse uu yahay ganacsada laga yaqaan magaalada oo dhan wayna ku degdegtay ma aysan lahayn qaab ula dhaqantay qaab wanaagsan waana inay raali gelisaa waxayna bilaabeen dhammaantood inay raali geliyaan ninkiina waxa uu bilaabay halkaas ka dhaqaajo uu nama islaameeyo gabadhii Hanhead waxay dareemaysaa inaysan wax wanaagsan sameeynin waxayna markaan bilowday inay markaan soo raacdo taliyihii ayay bilaawday inay markaan hadasho kuna tiraaho taliyalu aniga midaan ka sameeysan iga ahayn mana ku kasaynin xaasinimana ma aysan iga ahayn waxaan islaa oo kaliya shaqadaada qabso ninkaan gacanta ku dhig laakiin isagana ma isran inuu iga cararay midaasna waa qalad taliyaha ayaa waxa uu ku yiri aniga baad soo daba carar lahayd aniga waan ka carari lahaa maxaa yeelay qof kasta wax uu jecel yahay inuu naftiisa la baxsado laakiin ugu dambeyntiina waxay bilaawday inay markaan taliyaha raali geliso laakiin waxa uu ku yiri ma waxaad raali gelinaysaa xilli aad dishay albaabkiisa ay ka furtay albaabkiisa ayuuna galay waa uuna ka dhaqaajiyay wayna la sii hadlayay ku dhahaysay taliyo raali noqo kuma kasaynine ugu dambeyntiina way soo dhaqaajisay oo markaan timid gurigana hooyadeed ayaa TV siiga daawanaysay iyadoo hooyadeed iska baashaalaysay halkaas ayna iyadii hooyadeed waqti ku wada qaateen subaxdeena way soo dhaqaajisay oo markaan timid saldhiga shaqadeeda ayay bilaawday inay markaan qabsato askariga taliyaha oo dhaawac ayaa yimid dhammaan ciidamadeena waxa markaan loo sheegay in dhibaatadan ay u geysatay gabadhii Hanhead dhammaan askartiina waxay bilaabeen inay gabadhii dhaliilaan maadaama ay dhaawac xun u geysatay taliyihii laakiin waxaan ogaaynaa gabadhii Hanhead ninkay dab cararaysan markaan xiriir wanaagsan leeyihiin hooyadeeda ayayna wada sheekeysanayeen iyagoo markaan xiriir uu ka dhaxeeyay weli ma aysan isfahmin maadaama ay isku cusub yihiin gabadhii Hanhead midaan waxba ma aysan ka ogeyn daawada aan ku weydiiyay hooyada oo garoob ah ma guursan lahayd iyadii taliyaha ayaa markaan soo raacay waxayna markaan yimaadeen meel markaan isku digaalayay waxayna bilaabeen dadkii inay dhexdhexaadiyaan intay dadkii dhexdhexaadinayeenba gabadhii Hanhead teesta ayaa lagu xaday madax ayaana wareeray waxayna bilaabeen dadkii inay markaan kala celiyaan laakiin dadkana waxay ahayn kuwa hay energy badan aad bayna isku digaalayeen ugu dambeyntii dadka ay soo kala celiyeen gabadhii Hanhead way soo dhaqaajisay oo markaan soo qaadatay gaarigeeda hooyadeed ayayna soo raacday waxayna markaan ugu dambeyntii timid saldhiga laakiin iyada madax ayaa xanuunayay madax ayayna bilaawday inay barfis ka saarto isla habeenkiiba way soo dhaqaajisay iyadoo markaan timid gurigeedii markii ay timidba waxay bilaawday inay markaan hooyadeedii la cuntayso cunto ayayna wada qaateen iyadii hooyadeedii wayna wada sheekeysanayeen subaxeena hooyadii waxa markaan ku fakanaysa tubadii musqusha waxaana bilaawday inay qayliso qof kasta shaqadiisa ayuu isku diyaariyay subaxdiina waa la kala shaqo tagay gabadhii Hanhead waxay markaan la kulmaysaa saaxiibteedii taas ku fiicneed kombiyuutarada iyo camera CCda waxayna bilaawday inay markaan la sheekaysato waxayna ku tiri saabe waxaan rabaa inaad ila baarto dhammaan camera CCyaasha wixii ay duubeen adiga ayaana midaas aad ugu wanaagsan wanaad shaqadaas ii soo qabataa idina waxay ku tiri hay saaxiib waan dadaali doonaa waan ku sameyn doonaa midaas inta kadib halkaas way ka soo dhaqaajisay waxayna halkaas ku arkaysaa booskeeda ayay bilaawday inay la sheekaysato halkaan hooyadeediina ay markaan la kulmaysay ninkii ay qabanaysay gabadhii Hanhead waxayna bilaabeen inay sheekaystaan oo markaas ay biyo wada cabaan iyagoo waqti fiican wada qaadanayay si qoto dheer ayayna u wada sheekaysteen waxaad moodaa markaan inay isku sii dhawaanayaan habeenkiina gabadhii Hanhead markii ay timid guriga waxay markaan arkaysaa in dhammaan alaabtii taale guriga isku dhex fariiqsan tahay marka midaan aragtayna aad bay ula yaabtay waxaana bilaawday inay markaan hooyadeedii wacdo laakiin nambarka hooyadeedii waxa uu midaan la heli karin aad bayna ugu xanaaqday markii waxaan oo dhan aragtay iyadoo qeylinaysay laakiin hooyadeedii waxay markaan la kulmaysay ninkii saaxiibkeeda ahaa hooyadii Hanhead ninkii saaxiibkeeda way soo raaceen iyagoo markaan soo qaatay gaari waxaana bilaabeen gaariga dhexdiisa inay markaan ku wada sheekaystaan oo halkaas ay waqti fiican ku wada qaataan maqaayada inay soo aadan waxaana bilaabeen inay markale wax wada cunaan markaana waxaad moodaa inay is fahmayaan markii ay maqaayada ka soo baxeen way soo dhaqaajiyeen waxaana bilaabeen in markaan garab ka qabsato maadaama markaan isfahankoodii ugu dheeraaday saaxiibo dhabahna way noqdeen laakiin waxa soo daba socotay gabadhii Hanhead waxayna markaan arkaysaa dhaqanka hooyadeeda waxayna markaan ogaatay in markaan hooyadeeda la saaxiibtay ninkii iyada ay qabanaysay midaana gabadhii Hanhead aad bay ugu qalbi jabtay waxayna markaan dareemaysaa ninkan inuu dawin u maleegayo wayna soo dhaqaajisay iyadoo markaan u timid taliyihii Lou waxayna ku tiri hay taliya adigoo raali ma fariisan karaa taliyihii Lou wuxuu ku yiri hay fariiso dhima lahane markii ay fariisteen wuxuu ku yiri hay maxaad ii sheegi rabtaa waxayna ku tiri ninkii aan dhowr mar soo qabtay maanta waxaan ku arkay fal aad u qaab daran maxaa yeelay wuxuu isku dayaa inuu hooyadeeda xiriir la sameeyo midaasna waa qalad mana mid wanaagsan anigana ninkan waxaan ku tuhmiyaa inuu geystay dilkii gabadhii dhimanaysay waxa xaqiiqadalkaasi waan ka hubaa ninkan lug ayuu ku leeyahay midaasi laakiin taliye wuxuu ku yiri laakiin midaasi cadeen ay u baahan tahay waana qasab inaan cadeen helnaa si ninkaas dambi ugu ogno hadda hooyadeeda ayuu saaxiib la yahay waa inaad cadeynta oo dhan ka soo gaataa hooyadaada waana wadadii aan u marin lahayn intaa kadibna gabadhii Hanhead way soo dhaqaajisay waxay markaa imaanaysaa
imaanaysaa guriga waxayna bilowday in markaan iska dhigto qof murugsan si ay markaan hooyadeed xog ugu hesho. Hooyadeed ayaa bilowday in markaan la sheekaysato waxna ka weydiisay ninkii saaxiibkeeda ahaa. Maalintii xigtana dhammaan familka way soo raaceen iyagoo markaan dalxiis ku soo raacay waxaana dalxiiskaana oo dhan ka dameeyay gabadhii haaneed hooyadeeda saaxiibkeedii. Sidoo kalena gabadhii haaneedna saaxiibkeeda ayay soo wadatay kaasoo taliyaha ahaa wayna soo wada dhaqaajiyeen iyagoo markaan safar gaaban soo wada galay gaari ayna soo wada qaateen. Intii gaariga ay saarnaayeen way sheekaysanayeen intay wadada kusii jireen ba Samaafar ayaa markaana daarmay. Samaafarihiina way ka istaageen dad ayaana horumarayay waqti xadirkaasi kadibna way soo dhaqaajiyeen iyagoo markaan ugu dambeyntii yimid hoteelkii ay degi lahaayeen. Markii ay yimaadeen waxay bilaabeen inuu qof walba markaan qolkiisii doorto qof walba qolkii uu degi lahaay oo markaana doortay casho ay markaana diyaarsadeen waxaana bilaabeen cashadooda inay markaana cunaan iyagoo bilaabay cashadooda inay markaana ku raaxaystaan. Waqti aad u qurux badan halkaas way ku wada qaateen iyagoo sheekaysanayay laakiin ugu dambeyntii dalxiiskoodii way soo dhameysteen. Maalintii airport ka soo baxayeen waxay markaana kulmiyeen arrin cajiib ah maxaa yeelay nin ayaa dhulka ku dhacay isagoo markaas miir daboolmay haweeneyna way ku dulqeylinaysay. markay midaan arkeen aad bay ula yaabeen waxayna bilaabeen inay markaan u fidiyaan gargaarka degdega ah. hooyadii haan saaxiibkeedina waxa uu bilaabay ninkii inuu markaana saacido uuna markaan u fidiyo gargaar degdeg ah si uu ninkaan garab u siiyo. gabadhii haaneed isla markii waxay markaan wacaysaa qolada gargaarka degdega ah waxaana bilaabeen inay markaan isku dayaan inay markaan ninkii soo kiciyaan iyagoo markaan wax walba u sameynaya maadaama waqti xadirka ninkaan uu xanuusnaa. laakiin ugu dambeyntii way awoodi waayeen ninkii inay soo kiciyaan. ugu dambeyntii ambalaasta ayaa halkaasi timid waxayna bilowday ninkii inay halkaasi ka qaado. qoladii gargaarka degdega ahna way u mahad celiyeen siday markaasi dadaal ku bixiyeen. ugu dambeyntii safarkooda ay markaan sii wateen waxayna markaan ugu dambeyntii soo dhex mareen badda. sidoo kalena weeshish maraya badda korkeeda ay markaan soo mareen. ugu dambeyntii markii safarka ay soo qaateen oo ay soo laabteenba gabadhii haaneed waxay bilowday inay markaan hooyadeed ka dhaqaajiso kuna tiraaho hooy aniga waan kaa tegayaa guriga ayaan aadayaa adiga markaan qof ayaad yeelatay waad niga maarantay wayna ka dhaqaajisay hooyadeedii iyadoo markaas la hadlaysa. hooyadeediina waxay isku dayday inay la hadasho laakiin war way ka diiday wayna ka xarootay. laakiin markii gabadheedii ka xarootay qof ayaa kor ka fiirinayay isagoo markaas doonayay gabadhii haaneed hooyadeed inuu soo weeraro. intaa kadibna markii gabadheedii hadal ka maqal waysay waxay bilowday inay markaan wacdo saaxiibkeedii kuna tiraaho gabadheedii aniga waa iga xanaaqday mana aqaano wixii aan samayn lahaa. isagana waxa uu bilaabay inuu niyad u dejiyo kuna yiraaho may dhimlaan wax kasta way hagaagi doonaan. intii ay markaan socotay waxay markaan dareemaysaa dhaqdhaqaaq iyo qof inuu iyada daba taagan yahay. laakiin ugu dambeyntii waxay markaan ogaanaysaa inuu markaan qof iyada daba taagan yahay oo markaan iyada riski ku jirto halka gabadheediina ay markaan soo waciisay. laakiin taleefka ma aysan qaban karin waxay ahayd inay markaan ka fikirto sidii ku baxsan lahayd. gabadheediina markale ay ku soo celisay ninkan ugu dambeyntii haana hooyada gacanta iyo ku dhigay waxaana markaan isku dayay inuu dilo laakiin idina way ka carartay. laakiin isagana gacanta iyo ku dhigay waxaana bilaabay inuu nafta ku celiyo oo xitaa u diiday inay taleef ka qabato. iyadiina waxay bilowday xitaa taleef inay ka cararto laakiin ninkiina waa u diiday inay baxsato. laakiin ninkii waxa isku dayay haana hooyada inuu markaan soo afjaro laakiin isla markii waxa halkaas imaanay booliiska waxaana ninkii isku dayay inuu baxsado laakiin iyada ayaa lugta qabatay. booliiska ayaan halkaas u yimid waxayna bilaabeen ninkii inay gacanta ku dhigaan. gabadhii haana waxay markaan maqlaysaa in hooyada riski ku jirto oo ina gashay xaalad xun wayna soo cararaysaa iyadoo markaan imaanaysa saldhigga waxaana markaan booliiska weydiinaysaa hooyadeeda. laakiin intaan hooyadii loo sheeginba waxay markaan arkaysaa wiilkii soo weeraray hooyadeeda waxayna markaan dareemaysaa inay wiilkan dhowr mar horey u aragtay kaasoo doonayay inuu dhowr mar iyada soo weeraro. markii wiilkii aragtayba hal mar ayuu ku booday waxayna ku tiri war ninkaan waa arkay waa qayaanoole maxaa yeelay dhowr mar ayuu isku dayay inuu aniga i dilo ma deenayo ninkaan aniga ayaa dilay inta uusan i dilin. askartiina waxay bilaabeen inay markaan qabtaan. taliyihii luuna waxa markaan ku yiri adiga ma waalatay isdaji ninkaan gacanta ayaan ku haynaa cadeymo badan waan ka qori doonaa. isla markii waxay markaan u imaanaysaa hooyadeeda waxay markaan arkaysaa hooyadeedii xaaladeed inay fiican tahay. isla markiiba waxay markaan kuleetiga qabanaysaa ninkii saaxiibkeeda waxayna ku tiri waan ogahay waxaan oo dhan adiga ayaa ka dambeeya adiga ayaana sabab u ah hooyadeeda dhibaatadan oo dhan inay soo gaarto. isla markiiba waxa soo kala dhaxgalaya taliyihii waxuuna ku yiri isdaji waxaa laga yaabaa ninkaan midaas uusan shaqo ku lahayn. laakiin gabadhii haaneed waxay tiri 100% midaas waan hubaa ninkaan inuu lug ku leeyahay. laakiin taliyaha ayaa wuxuu ku yiri cadeen ayaa loo baahan yahay qofka qalad laguma qabsado askari ayaa tahay waa inaad nidaam ka dhowrtaa. ugu dambeyntii gabadhii haaneed hooyadeeda ayay soo waday iyadoo markaan keentay guriga waxayna bilowday hooyadeeda inay markaan daawayto oo inay daawayso maadaama jug fara badan ay ku taalay. maalmaha kamid ah gabadhii haaneed iyo askari kamid ah askarta waxay markaan arkayaan arday markaan dilaysay gabar kale kuwaasoo ku goobanayay. markay midaas arkeen bay waxay bilaabeen inay ku cararaan oo gabadhii ay ka celiyaan. dhammaan ardaydina waxay bilaabeen halkaas ka cararaan. ardaydii markaan halkaas ka carareen gabadhii
ayay bilaabeen markaan soo istaajiyaan oo markaan ku yiraahdaan xaaladaada waa sidee waxayna ku tiri hadda waan roonahay inkastoo jug badan ay gaartay laakiin waxay weydiisay ardadaana waxay ka rabeen laakiin waxay ku tiri ma aqaano waxay iga rabeen waxaana bilowday gabadhii ahaanadina markaan kaarkeeda siisay kuna tiraaho haddaad ii baahato waad soo wici kartaa gabadhiina waxay bilowday inay kaarkeeda doobto oo ina toorto in halkaas ka dhaqaajiso nacayb ee booliis ku qabta awgiisa gabadhiina halkaas way ka dhaqaajisay iyagana gaarigooda ayay soo qaateen iyagoo soo dhaqaajiyay intaa kadibna waxaan aragnaa taliyihii iyo gabadhii haan waxayna markaana joogeen dhammaan askartii ka sarriisay waxaana markaan la weydiiyey labadooduba xaggoo maraya kiiskii gabadhii dhiminaysay gabadhaasi xaggee lagu ogyahay dilkeeda ayaana dilay maxaa jawaabaha oo aad ka soo saarteen kiiskaas in badan ayaad daba socoteen mana jirto waxaad ka qabateen hadda kadib waa in nagala wareejiyaa kiiskaasi maxaa yeelay idinka waxba waa ka tari wayseen in badanna waad daba socoteen markii kiiskii laga soo wareejiyay haan iyo taliyihii luu way soo dhaqaajiyeen iyagoo markaan yimid wiishka ayayna soo raaceen taliyahanna aad buu u xanaaqsanaa habeenkiina waxaa markaana aragnaa wiilkii yaraa oo markaan soo weerarayay hooyadii haan waxuu markaan imaanayaa meeshii lagu dilaayay gabadhii markii halkaas u yimidba waxuu markaan arkayaa qof halkaas ka faqaayay qofkii waa uu fiiriyey waa uunan garan waayin wax uu yahay qofkiina waa uu soo baxay isagoo markaan soo aaday xaggiisa wiilkiina isagana waa uu soo baxay qofkii ayuuna ku dhacay qofkiina alaab ayaa ka dhacday ilaa hadda weli qofkaan wejigiisa ma uusan garanin wiilkaana qofkaana wax uu leegyahay taliyihii joogay saldhigga ninkii alaabtiisa ayuu ka qaatay halkaasna waa uu ka dhaqaajiyey markii ninkii uu ka tagayna wax uu bilaabay inuu ninkii sii daba cararo laakiin ninkii halkaas waa uu ka dhaqaajiyey waxaan aragnaa gabadhii haaneed iyo taliyihii luyna markaan yimaadeen saldhigga markay yimaadeenba gabadhii haaneed waxa markaan u imaanaysa saaxiibteeda waxaan markaan ku tiri haye saaxiib ii waran ayaanta ma aanan ku arkin aad baan kuuga xiisay ee xaggee wax kuu marayaan waxaan markaan u sheegaysaa wax kasta meeshay u marayaan laakiin haan saaxiibteed waxay ku tiri aniga waxaan isku dayi doonaa inaan ku caawiyo mar kasta kadibna askartii waa ay soo dhaqaajiyeen si ay markaan xogaa caddeem u soo raadiyaan askartiin ilaa habeenkii ay wareegayeen xaafada ayna soo dhexgaleen gabadhii haaneedna waxay markaan soo dhexgalaysaa xaafadaha waxaan markaan u imaanaysaa haweeney markaan cananinaysay laba wiil waxaan markaan ku tiri hay maama waan ku salaamay labadaana wiil adiga miyaa dhalay waad bacananaysaahe iyadana waxay ku tiri may aniga ma aanan dhalin laakiin aad ba ii dhibeen waan ku qasbanaya inaan iska canaanto waxaana bilowday inay markaan haweeneydii u foorarsato maadaama maamo weyn ay iyadoo qadarinaysa wiilashiina waxay bilaabeen inay ku daydaan haan iyagoo bilaab inay la foorarsadaan iyagoo ixtiraamaya waxaan markaan wiilashii ku tiri waanaad dhib ka dhaaftaan dadka idinka weynna waa inaad qadarisaan wayna ka dhaqaajinaysaa halkaas iyadoo markaas aadi xaafadeeda subaxdeena booliiskii weli waxay sii wadeen wareegoodii iyagoo markaas raadinaya caddeemo dheeraad ah iyagoo caddeemihii raadinaya ayaa markaana waxay arkayaan loogadii booliiska oo markaasi taala dhulka marka midaan arkeenba aad bay ula yaabeen maxaa yeelay waa ay garan waayeen cidda loogada booliiska dhulka dhigtay intaa kadibna waxaan aragnaa haan hooyadeedii taasoo saaxiibkeedii la tagtay goobtii shaqadeeda saaxiibkeedii ayaa markaan u sheekeynaysay iyadoo markaas dhahaysay haddii aad rabto adiga xitaa masaaj baan kuu samayn karnaa waadna ku raaxaysan doontaa masaajkeenna laakiin isaga waxa uu yidhi maya hadda aniga masaaj uma baahni waadna mahadsan tahay maalintii xigtana gabadhii haaneed iyadoo markaan howlgalkeedii ku jirta waxay markaan arkaysaa haweeneydana alaab ayay qaadanaysay alaabtii ayay bilowday inay markaan haweeneydii la soo qaado iyadoo markaas la sheekeysanaysay haweeneydana waxay tu aad u furfuran wayna u sheekeynaysay aad bayna ugu weyneed waxayna u ixtiraamaysay sida hooyadeedii oo kale waxaan markaana weydiinaysaa waxyaabo badan oo markaana ka dhacay xaafadeeda markii alaabtii la soo qaadayba haweeneydii waxay markaas ku daysan lacag siiso waxayna ku tiri maya aniga markasta waxaan u joogaa inaan caawiyo dadka maxaa yeelay askariid ayaan nahay lacagna uma baahni wayna ka soo dhaqaajinaysaa habeenkiina waxay markaan wada kulmayaan taliyaheedii iyada waxay bilaabeen inay markaan wada sheekaystaan iyagoo markaas ka wada sheekaysanayay falkii xuma oo iyada samaysay maxaa yeelay in kiiskaasi laga wareejiyo iyada ayaa ka dambeysay markastana waxay isku dayaysay howl aan loo dirsan inay qabato laakiin hadda waxaas oo dhan waa laga soo gudbay laakiin ugu dambeyntii taliyihii way ka tagtay iyadoo markaasi macaslaamaysay waxayna ku tiri taliya kulanti dambe oo xiiso leh wayna soo dhaqaajisay gurigeeda ayna biyo ka soo cabtay banaanka ayna soo istaagtay intii ay banaanka taagneedba waxay markaan arkaysaa gaari markaan taagnaan goob qaldan gaariga ayaa markaan kusoo carartay gaarigaana markaa aragtayna aabbi uula yaabtay maxaa yeelay waa uu shidnaa mana aysan jirin qof ku jiray leerna waa uu daarayay waxaana bilowday in markaan gaarigii la hadasho laakiin waa weynaysa cid halkaasi joogtay waxaana bilowday habeenkii gaariga hortiisa inay markaana saaxato subaxdiina waaga ayaa markaana baryay ninkii gaariga iskale ayaa markaan yimid waxaana bilaab gaariga inuu kiciyo iyadana way soo istaagtay u timid waxaan ku tiri aniga askariid ayaan nahay goob qaldan ayaad gaarigaada ku baakintay midaana macquul ma aha dembi ayaad sidaani ku gashay laakiin isaga waxa uu yidhi maya aniga wax dembi ma aanan gelin maxaa yeelay meel kasta ayaan gaariga ku baakiman karaa gabadhii haaneedna way soo dhaqaajisay iyadoo markaana timid saldhigga markay timidba kaamil sidii markaana daartay si ay markaan wax ugu ogaato gaarigaas wax lagu qabanaya xali waxaana bilaabeen dhammaan iyada askartiina markaana daawudaan inkastoo aysan si fiican u arkaynin
laakiin dadka hooskooda ay arkayeen. Halkaasna waxaa ka dhacay dil aad u fool xun iyadoo halkaasi la isku dilayay. Nin ayaana meeshaas lagu dilay. Marka midaas arkeen aad bay ula yaabeen iyagoo markaasi helay cadeyntii ugu dambeysay. Waxaana markaan ku guuleysteen inay markaan ugu dambeyntii cadeyntii helaan. Waxaana markaan ugu qasbeen qofkii fakaana geystay inay soo xiraan. Midaasna waa qasab. Kadib habeenkiina waxa markaan bas soo wada raacay taliyihii gabadhii haan ahayd. Gabadhii haan hurdo ayaa qabatay garabkii taliyihii loo ay markaan ku saaxatay. Ugu dambeyntiina gabadhii haan waxay markaan imaanaysaa guriga markay timid waxay markaan arkaysaa adeerkeedii kaasoo markaan bagi ku haya hooyadeeda. Markay midaan aragtay aad bay ula yaabtay. Kadibna waxay markaan soo galaysaa qolkeeda markay soo gashay waxay bilowday inay markaan raadiso cadeemo badan kuwaas wax badan lagu ogaan karo. Waxaana jiray sameecado badan kuwaas wax lagu dhageysto inta badan la isku xiriiriyo. Waxaana jirtay rasaas lagu dilay gabadhii. Waxaana bilowday inay raadiso rasaastaas halka laga isticmaalo iyo halka laga leeyahay. Ugu dambeyntiina subaxii way soo kacday iyadoo markaan baaritaankii soo dhameysatay. Markay soo kacday waxay markaan arkaysaa adeerkeeda oo markaan ku jiro jikada. Hooyadeedii oo jeetay markaan u timid waxaan ku tiri hooyadeeda hooy adiga maxaa ka qaldan maalin kasta ma jiif weyn tahay oo kaliya xitaa ma awoodin shaqadaada inaad aado waad iska jiifanaysaa. Waxaad moodaa markaan inaad leedahay lamaane waad halawday waadna ka sii dartay markii aad saaxiib yeelatay. Iyadana waxay ku tiri war gabadhiya shaqo yeelo shaqo malihide. Ugu dambeyntiina hooyadii haan iyo ninkeedii way soo raaceen iyagoo markaan soo wada aaday shaqada wayna wada sheekeysanayeen iyagoo markaan watay gaarigoodii. Gabadhii haan ugu dambeyntii waxay markaan imaanaysaa shaqadeedii markay timid waxay bilowday inay markaan hawlaheedii sii wadato. Maalintii xigtana waxay markaan qabsanayeen casho wadareedana waxay la wadaagayeen dhammaan asxaabtooda kuwii qadiimiga iyo kuwa hadda joogaba. Casho wadareedii ayay bilaabeen markaan wada cunaan iyagoo halkaas wada sheekeysanayay. Markii casho wadareedii markaan soo cuneenba way soo dhaqaajiyeen iyagoo markaan soo qaatay gaarigooda wayna iska wada sheekeysanayeen dhammaantooda. Waxayna gaariga markaan ku saarnaayeen gabadhii haan ahayd iyo hooyadeeda iyo saaxiibkeedii iyo haweeney kale oo deriskooda ahayd. Ugu dambeyntii waxay markaan yimaadeen gurigoodii markaan yimaadeen gabadhii haan way soo degtay iyadoo markaan fiirinaysa saaxiibkeeda inuu joogay in kale. Ugu dambeyntiina way wacday waxay ku tiri xageed joogtaa. Waxaan markaan u sheegay inuu joogo wili saldhigga. Markii uu sheegay saldhigga inuu joogo maqaayad ay ku ballamisay maqaayad ay isugu yimaadeen waxayna bilaabeen halkaas ku cabaan oo ay ku baashaalaan iyagoo halkaas ku cunteynaya kuna cabayay wayna ku wada sheekeysteen waqti badan. Kadib markii wax walba ay soo dhameysteen way soo dhaqaajiyeen iyagoo bilaabeen markaan wadada ku soo sheekeystaan. Waxayna bilowday iyadii inay markaan soo aado gurigeeda maadaama ay aad u daalaneed isagana wax uu aaday gurigiisii. Intaa kadibna waxaan aragnaa hooyadii haan iyo ninkeedii gacmaha ayayna is haysteen iyagoo is guursaday oo xitaa lamaano noqday. Markii hooyadii haan ay soo tagtay saaxiibkeedii waxay markaan arkaysaa laba wiil. Labadan wiilna hore ay casho ula qaateen. Waxayna ku tiri hay ii warraba meelaha miyaad degan tihiin. Waxayna ku yiraahdeen haa deriskiina ayaan nahay. Ugu dambeyntiina waxa markaan u imaanaysay gabadheeda ayayna soo raaceen iyagoo markaan soo dhaqaajiyay. Laakiin inta aysan xaloolinba waxay markaan arkayaan taliyihii loo ay markaan soo raaceen maqaayad ayayna yimaadeen. Waxayna bilaabeen halkaas ku soo sheekeystaan oo halkaasna ay biyo ku soo wada cabaan. Ugu dambeyntiina ciidamadii waxay markaan ogaadeen qofkii falalka qaabka darnaa geysanayay waxayna ahayd haweeneydii da'deedu alaabta la soo qaadaysay gabadhii haan ahayd. Ugu dambeyntiina cadeyntii u buuxday markaan way heleen qofkii dilaagana markaan gacanta ay ku dhigeen. Intaa kadibna gabadhii haan safar ayaa markaan loo diyaariyay. Waxayna bilaabeen in markaan safarkeedii ku raaxaysato iyadoo aad airportka halkaas ayna ka dooshay si waqtigeeda u soo qaadato. Maanta waxaan halkaan ku soo gabagabeynaa dhammaan taxanaheennii. Maanta muuqaalkan intaan ayuu ku egyahay. Intaan muuqaalkan mid ka xiiso badan kulmi doono sida nabadiino.